gacmaheedii waa kuwaas waad aragtaan tan waad aragtaan iyada muruqu waa go-an yahay waxa weeyaan waa dhagax buu noqday surkeedii waad aragtaan korkeedii waad aragtaan gabadhii waa soo qaadnay gurigaa jeelkaa la geeyey warqad baa loo soo jaray gabadhii baa la doonay waa la waayey ninkeedii baa la xidhay iyadii baa markaa la doono iyadii baa jeelkii la keenay adigu labadii baa guriga la keenay casarkii markayd waxaan tagnay dhakhtarka fayaan tagnay ninkii dhakhtarka ahaa wuxuu yidhi dee sidan islaamtinimo maaha muslimnimona maaha gabadhan culimaa udiinka magaalada jooga iyo dhakhaatiirtu ilaahay isugu yimaadaan wax la qori karo iyo wax la taaban karo maaha buu yidhi iskaamna hala saaro buu yidhi ninkii buu la hadlay wuxuu ku yidhi gabadhan gurigaaga joogtay sideeday saa ku noqotay u tiraadi ma ogi anigu beer baan lahaa buu yidhi beertaan aadaa shantaan tagaa casarka markaan soo galo duurka maqribka soo galo war gabadhii mid waxbarashay jirtaa waxbarashana ma jirin bay tiri gabadhaasi sanadkaa iyo barka wali garaacaye oo qolkaasaan ku xidhnaa marna kajaraan ku xidhnaa anigoo dhacdhacayo mantaqayo saa daawaya dhacaya bay saddexda qol iyo kijada iyo musqushay tiri hadda soo madsaday bay tiri aan saa usoo mariyey masaxaad bay tiri marka waxay tiri labadan been waxay kaga shubi jirtay oomo iyo basbaaska cas bay kaga shubi jirtay canjeelada qooshkaana waa cabi jiray bay tiri wataa waraysta idinkuna intay maxay cabbay tiraahdaa macalbaastada bay tiri qawariini markay radiso waxay tiri cab gabadhanina dee maaha wax dilida maaha waxa weeye waxaa ku dhacay wax ay kor iyo kalaba midna u noolayn oo dhaawacan rabto in laga dawaysto oo rabta maxaan kuu sheegayo in islaamkuba isugu yimaado raxmaan raxiim magacaygu waa xaawo cabdulla muuse oo barta facebook looga yaqaano doctor Nimco inta yarsaaka markaan anigu maanta gelinkii hore aan ogaaday xalay ma aan ogeyn maanta gelinkii hore xaafadda qayb ka mid ah iyo faamiliga qaar ka mid ah baa soo aaday galabtaan dhakhtarka geeyay dadka dhakhtarka wax ka geeyay waan ka mid ahaa kala galabta indhaha baa loo soo cabirayay oo maadaama ay tirin indhaha basbaas iyo oomo laga shubay ayaa indhahan aanu u soo cabiraynay gabadha tacadi aad u weyn baa loo geystay jirka nabarada kaga yaala dadkoo dhan way arki karaan laakiin waxa qalbiga kaga yaala cidina ma arki karto iyo maskaxiyan waxa kaga yaala qofkuna yara waa dareemi kartaan inuu ros 12 jir weeyo hooyadeeda la joogin dad kale la joogto sida loo galayna la arkayay nabarada korkeeda ku yaala oo qaarkood ay bari hore biskadeen oo diir madow yeesheen qaarkoodna ay hadda cusub yihiin waa dareemi kartaa qaarba midab ay leeyihiin waqti dheer ay soo socdeen qofka intaas oo sanad iyo bar baa la dilay qof sanad iyo bar la dilayna qalbiyana uma caafimaad qabo maskaxiyana uma caafimaad qabo qof nafsiyana loo dilay jirahaana loo dilay hadallada iyo yaani say ula loola dhaqmay baa nabarada wax walba ka xun marka inanteedu waxay u baahan tahay caawimaad weyn oo ah in maxaa la yiraahdaa nafsadahaan iyo jirahaan la daweeyo waxa dhacay dadku ama waa dhintaa ama waa noolaadaa dhaawacana maxay haytona wax la boobadhag karo oo la isaga garaabi karo oo xaq leh oo xaq laga qaato iyo wax wuxuu yahay aan la garanaynin ayaa gabadhan ku yaal waxa weeyaan gabadha tan horta wixii soo caawin karaya ha caawiyeen dal iyo dibadba waa gabadhan dhimanna noolayna waxa magaaladu dadkayda ka codsanaya ehelka ahi qofka in la soo qabto qofkaas waa beerdoon haddii xaq qalbigiisa aadan ku jiro bila aadan ku jiro beerdoonada